Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkii noogu dambeeyay ee aan programming kaga hadlaynay, ballanteena waxay ahayd in aan samayn doono muuqaal kale oo aan kaga jawaabi doono su'aalaha intooda inoo hartay. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadalnay waa maxay programming, waana maxay programming language. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa faa'iidooyinka programming-ka, sideen ku baran karaa iyo xageen ka baran karaa. Marka aan u imaano waa maxay faa'iidooyinka programming-ka, waa maxay faa'iidooyinka aniga uu ii leeyahay haddii aan barto ama uu carruurtayda u leeyahay. Programming-ka barashadiisa waajib miyaa mise waa doorasho? Qofkii rabo wuu baran karaa, qofka kalena wuu iska dayn karaa. Noocaas miyaa amase qof kasta qasab bay ku tahay inuu barto programming-ka? Midda u dambeysa ayaan ka bilaabayaa. Waxaan leeyahay programming-ka barashadiisa waa qasab. Sanad kasta ama da' kasta oo jirtaba, programming-ka barashadiisa waa qasab, mana ka maarantid. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid sababta aan kuu leeyahay barashada programming-ka waa qasab. Sababta aan kuu leeyahay programming-ka barashadiisa waa qasab waxaa weeye programming-ka wuxuu sahlayaa 10 waxyaalood oo uu qof kasta ka maarmin. Mana u malaynaya adigaan xitaa dhegeysanaya iminka kan in aad ka maarmi karta hal mid oo ka mid ah waxyaabahan 10-ka ah. Mid kastoo 10-kan shay ka mid ahna waad u baahantahay noloshaada. Keliya baahi maaha ee weliba waxaa lacaga badan ku bixisaa si aad u kasbato. Laakiin si automatic ah ayuu kugu yimaanayaa inta aad baranaysid programming-ka. Qodobka koowaad, programming-ka wuxuu ku barayaa in aad baratid tafaasiisha waxa ilaa xadka ugu dheer. Sidaan horey muuqaalkii hore ugu soo sheegnayba oo ahayd in aad print qortid kadib aad qows furtid ku kala xirtid qaabkaas aad wax u wada, taa waxay ku baraysaa si qasab ah inaad raadisid tafaasiisha ilaa xadka ugu fog. Kaba soo qaad inaad u shaqaynaysid shirkad weyn sida Google oo kale. Waxa ku hor yaalla waa system-kii oo dhan oo code ah. Code kasta si gooni ayaad isha ugu haysaa, oo haddii uu hal code ah wax yar uu ka qaldama, waxaa laga yaabaa in system-kaas dhan uu shaqayn waayo ama uu qalqal ku yimaado. Sidaas daraaddeed, si qasab ah waxaa u baranaysaa in aad fiirisid shayga tafaasiishiisa ilaa xadka ugu fog, oo aad gudaha u gashid oo aadan keliya ku ekaan sawirka kore. Arrinta oona ah in aad shayga si hoose u eegi kartid, aad kala shaandhayn kartid, waana maharag keliya nolosha programming-ka aan ku anficaynin ee noloshaada inteeda kale oo dhan way kuu faa'iideynaysaa. Nambarka labaad, programming-ka wuxuu si qasab ah kaaga dhigayaa qof nidaamsan. Markaad qoraysid codes, waxaa qasab ah inaad wax walba hal maalin aadan ku dhamayn karin. Marmarka qaarna waxaaba laga yaabaa hal mashruuc oo keliya in uu kugu qaato 3 bilood iyo wax ka badan. Taa waxay kugu qasbaysaa in aad isnidaamisid oo isbartid inaad waqtigaada ku xisaabtantid, maadaama howlaha ku sugaya aysan yareen oo aadna doonaysa xadka ugu yar eed ku dhamayn karto hawshaas inaad ku soo afjarto. Ka waran markaad qorshaysatay in aad qorto 50 sadar oo code ah, kadibna aad 20 ka mid ah 50-kaasi sadar aadan qorin weli. Maxaad dareemi kartaa dabcan? Waxaad dareemaysaa inaad waqtigaadii lumisay. Taana waxay kugu saacidaysaa in aad fikirtid waqtigaadana aad ka faa'iidaysatid sida ugu habboon si aad howlaha dhaadheer ee ku sugaya waqtiga ugu habboon aad ku dhamayso. Sidaas daraaddeed baa waxaa samaynaysaa in aad nidaamisid waqtigaada si howlaha dhaadheer ee ku sugaya aad ugu dhamayso waqtiga ugu macquulsan ee aad ku soo afmeeri kartid. Nambarka afraad, programming-ka wuxuu ku barayaa inaad noqoto qof aftahan ah iyo inaad noqoto qof kale horumarinta fikradaha aad u yaqaan. Maxaan kala jeedaa? Adiga markaad code qoraysid, computer-ka waxaad ula soconaysaa tallaabo. Computer-ka waa aalad dhagala, nafsadiisana aan waxba ka aqoon. Adiga weeye qofka tallaabo ula soconayo oo wax baraya. Haddaad codadka aad qoraysid aadan nidaamin karin oo qaab aftahannimo ah aadan u kala horumarin karin, barnaamijkaada ma shaqayn doono. Computer-kana intuu kuu dawamaro ma hagaajinayo. Xitaa inuu ku hagaajiyo iska daayay waxaad qoraysid maba fahmaya.
Saa daraadeed si qasab ah ayaa waxaa ku baranaysaa sidii afkaarta aad u kala nidaamin lahayd taa oo aftahanimo ku siyaadinaysa xagga dhanka markaa bini'aadanka la xiriiraysidna. Ogowna awoodda Alle. Qofku awooda inuu u hadla sida ugu wanaagsan, sidoo kalena wuxuu awoodaa inuu u noolaado sida ugu fiican. Wuxuuna awoodaa in uu helo fursado badan uusan heli karin qofka kale. Keliya in uu si fiican u hadli yaqaan una afkaartiisa kala nidaamin yaqaan. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiis ku leeyahay inna min albayaani la sixra. Nambarka 5 Programmingka wuxuu ku barayaa sabarka iyo dulqaadka. Markaad barnaamij aad ka shaqaynaysay oo aad dhamaysa baad kombiyuutarka waxaad ku leedahay itus inuu barnaamijkaas u shaqaynayo. Kadib mar qura waxaa la kulmaysaa inuu barnaamijka uusan shaqaynaynin oo isxiraya. Mar labaad baa ku soo laabane si aad u ogaato meesha ay cilada ka jirta. Ka waran barnaamij ka kooban 100 sadar oo kood ah ayaad baaraysaa si aad u ogaato koodka meesha ay cilada kaga jirta. Waxaad raadinaysaa cilada inta miya maya inta maaha. Haddana inta miya may inta maaha. Waad baaraysaa inta miya cilada haa imika heli waad sixi. Marxaladan waa mid aad u adag ilaa aad cilada aad ogaato oo aad saxday kadibna uu kombiyuutarka ku dhahaa waa saxday. Barnaamijkana uu shaqaynayaa. Farxad weyn oo ku ilowsiinaysa wixii daal iyo dhibaato oo ka horeeyay. Waa sida adiga oo diyaarinaya imtixaankii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ku rafaaday diyaarintiisa. Kadibna aad tagtay hoolkii aad ku gali lahayd imtixaanka markii la gaaray waqtigiisa. Waad qaadatay imtixaankii kadibna xilligii ay natiijada soo bixisay ayaa waxaa lagugu soo wargeliyay inaad imtixaankii aad gashay aad ka heshay 100%. Farxadda ku haysa waxaad ilaawaysaa wixii rafaad iyo dhibaato ee u soo martay imtixaanka diyaarintiisa. Saad arkaysid waxaad baranaysaa sabarka iyo dulqaadka in yar. Xataa dabci ahaan haddaadan ahayn dadka sabarka dulqaadka badan, kaliya waxaa samaysa inaad wax yar ka shaqaysid programmingka. Waxaad arkaysaa adigoo in yar u noqonaya qof dulqaad badan. Waxaan filayaa qof kasta iyo cid kasta oo tahayna waad u baahan tahay sabarka. Inaad carruurtaada la joogtid sabar kula dhaqantid, markaa shaqada joogta, markaa asxaabtaada la joogtid iyo gurigaada markaa joogtidba. Nambarka 6 Programmingka wuxuu ku barayaa qorsheynta. Markaa wax programminaysid waxaad ka fikiraysaa dhinacyo kala duwan iyo qorshayaal kala duwan. Tusaale ahaan ka soo qaad waxaad programminaysaa meel ama qaanad uu qofka u gelinaya Gmail-kiisa uuna ku qoraya halkaas Gmail-ka. Waxaad isweydiinaysaa qorshayaal kala duwan. Ka soo qaad hadduu qofka Gmail-kiisa uu horay ugu jiray systemka waxa u soo saar. Ka soo qaad haddii uu Gmail-ku qofka meesha gelinayo uu ka tagay calaamadda aad ilaan Gmail aan calaamadaas lahayn ma jire. Hadday dhacdo waxa u soo qortaa waxaas. Ka soo qaad. Saa waxaa ku baranaysaa qorsheynta waana xirfad noloshaada kale oo dhan ku anfacaysa. Nambarka 7 waxaa baranaysaa sida mushkiladaha loo xalliyo. Inkasta oo ay dhamaataba mushkiladaasi iyo sida qayb loogu qaybin lahaa mushkiladaas. Mahaaradda mushkilad xalinta waa mahaaro buugaag badan laga qoray oo cilmadana marar badan ay falanqeeyeen. Waana mahaaro iyo xirfad khatar ah oo noloshaada caawinaysa. Marka wax programminaysid waxa ku imaanaysa mushkilad kasta. Kadibna waxa u kala qaybinaysaa gobolo iyo cadcad. Kadibna waad xalinaysaa. Sidaas dabiiciga ahna programmingka waxa kaga baranaysaa xirfadda xalinta mushkiladaha. Programmingka wuxuu kordhinayaa garaadkaada. Markaa sameynaysid waxaan maanta oo dhan aan ka sheekeynaynay bal suuraysa inta caqligaada oo howlo qabanaya iyo sida uu u shaqeynayo. Waxaa haysataa furooyin wax walba lagu furo. Nashaadka caqligaada waa mid aan dabiici ahayn wuxuuna u shaqeynayaa si heer sare ah. Si aadan dareeminin ayaad waxaad ku noqonaysaa mid ka caqli badan qeyrkiisa. Maxaa yeelay waxaad aragtaa wax aysan arkin. Nambarka 8 Dhaqaale oo ilaa xad kugu filan amaba ka badan. Markaad baranaysid programmingka waxaa qasab ah inuu hadafkaada ka mid ahaado
in noloshaada dakhli u soo hoyso. Waxaase siman in barnaamij aad samaysid kadibna aad suuqa geysa ama adigoo khibradaadan oo dhan xambaarsan intaad oroda oo aad u shaqayso shirkado kale. Nambarka 9, kalsoonida nafta. Marka aad kombiyuutarkaada aad ku qortay aad ku gada doolarra, kalsoonida aad nafsadaada ku qabta way kordhaysaa. Waxaadna bilaabaysaa inaad aaminta awoodaha nafsadaada. Waxaad dareemaysaa in uusan jirin wax adag adduunkan. In aad awoodahaada aamintidna waa shayga koowaad ee kugu saacidi kara in aad hadafkaaga xaqiijisid. Nambarka 10, waxaad awood u yeelanaysaa inaad dadka kala akhrisatid. Adiga maanta oo dhan waxaad arkaysaa code, waxaadna awoodaa in aad sii qiyaasta sida uu codekaas u shaqeynaya iyo waxa ay noqon karta natiijadiisa. Kaliya sida uu u shaqeynaya maaha waxaa awoodaa xaraf walba oo codekaas ka tirsan iyo waxa uu ka yahay iyo marka laga saaro sida uu noqonayo inaad qiyaasto. Marka waxaas oo khibrad ah aad ula soo laaxatid bini'aadamka, waxaad awoodaysaa in aad si fudud u akhrisata ficilada ay samayn karaan dadka kugu hareeraysan. Waxaad awoodaa inaad sii sawiratid tasarrufka ka soo bixi doono. Dabcan kuma lihi waa awood waali ah ama cajiib ah, laakiin waa fikir marmar aad asiibi kartid sida saxda ah, marmarna aad qaldami kartid. Bis intaan waa 10 faa'iido oo programmingka uu leeyahay. Intaan kama badinayo. Markaan waxa iga sugtaaba waa jawaabtii su'aashii ahayd xageen ka bartaa iyo sideen u bartaa. Jawaabta tan dambe ee su'aasha waa mid sahlan. Programmingka ma adka, mana aha wax aan la baran karin. Kaliya dulqaad iyo in aad waqti gelisa ayaa u baahan tahay sida u barato. Markaan waxa isweydiinaysaa yaa i baraya programmingka iyo xageen ka bartaa. Internetka waa goob wax badan aad ka baran kartid, gaar ahaan xirfadda aan maanta muuqaalkeena kaga hadlayna ee programmingka. Waxaa jira website-yo badan oo aad ka baran kartid programmingka, qaar bilaash ah iyo qaar lacag ahba, sida Coursera iyo Udemy iyo kuwo kale oo badanba. Ama waxaa awoodaaba in aad ka baratid aaladan aad imanka iga daawanaysid ee YouTube-ka. Kaliya ku raadi luqadda aad si fiican u taqaana, labada luqadood ee Soomaalidu barata ee English iyo Carabiga. Kadibna waxaan rajaynayaa in aad heli doonto ilaahi kuwa habboona ee aad ka baran lahayd xirfaddii noloshaada aad ku bedeli lahayd daba iyo dacalba. Waa inoo muuqaal kale oo xiiso leh. Inta ka horeysa ballanteena waa inaad kanaalka gaarsiisaan bulshada kale si ay ayagan uga faa'iidaystaan muuqaalada aan madashan ku soo gudbin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.